salaamu ullahi calaykum isku soo noqod wanaagsan asxaabta ku xidhan kanaalkeena kobci garaadkaaga. waxaa jira dadka qaar amba sheekooyin haddii lagaaga sheekeeyo aad horey ka qoslayso, kuwaasoo sababta aad ku qoslaysa ay tahay hadallada la iswadaarsanayo amba weedhaha uu qofkaasi sheegayo. haddaba maanta waxaan idiin sidaa sheekooyin aad horey ka qoslayso markaaad maqasho. haddaba daawade, haddii aad ka cusub tahay kanaalka kobci garaadkaaga, fadlan subscribe saar. mahadsanid. naag ayaa ninkeedii weydiisay haddii aan dhinto naag kale maaroosi lahayd. markaas buu ugu jawaabay, waaban waalan lahaa haddii aad dhimato. waxay weydiisay, haddii aad waalato maaroosi lahayd naag kale? markaas buu yidhi, nin waalan wax walba ka filo. wiil baa gabadh aabaheed ka soo doontay. odaygii baa weydiiyey, adeer, sigaarka miyaad cabtaa? wiilkii ayaa ugu jawaabay, haa adeer, laakiin ma badsado, marka aan qaylayo baan qac ka siiyaa. odaygii baa weydiiyey, oo maad qayshaa? wiilkiina wuxuu ugu jawaabay, haa, marka aan isbaarada joogo waxaan isaga ahaynba ma cuno. odaygii, oo isbaara miyaad joogtaa? wiilkii baa ugu jawaabay, haa adeer, tan iyo waagii xabsiga laga soo daayey wax kaleba kamaan shaqaynin. odaygii, xabsi miyaad gashay oo maxaa lagugu xidhay? wiilkii, oday kibir badan baan gabadh u doontay, wuuna ii diiday, anna 5 xabadood ayaan ku dhuftay. odaygii, faataxada noo mar, aan gabadha meherine. nin tuuga ayaa la weydiiyey, waa maxay farqiga u dhexeeya raganimo iyo geesinimo? wuxuu ku jawaabay, raganimadu waa inaad subermarket soo xadaa, geesinimaduna waa inaad berri ku noqotaa. naag qaawan ayaa tagsi soo fuushay iyadoo aan wax dhar ah xidhnayn, sidii lagu dhalay camal. darawalkii tagsiga oo la yaaban naagtaas qaawan baa naagtii ku tidhi, maxaad iga soo eegaysaa? naag qaawan weligaa maad arkin miyaa? darawalkii baa wuxuu ku jawaabay, waan arkay naag qaawan, laakiin waxaan la yaabanahay lacagtaadii sii doontaa meesha ay kuugu jirto. oday London ka yimid baa wuxuu ku soo laabtay dalka. dabadeed wuxuu guursaday gabadh 18 jir ah oo uu dhali karo. markaa odayga waxaa ku jiray lug iyo gacan caaga. markii xafladii aroos ku dhammaatay kadib ee la soo kala dareeray, ayaa qolkii soo galay. markaas ayuu lugtii iska bixiyey oo halkaa dhigay, haddana gacantii iska bixiyey oo halkaa dhigay, haddana ilkihii buu iska furay oo miiska saaray. inantii ayaa albaabka ka booday oo orod isdhigtay ilaa reerkoodii. hooyadeed baa weydiisay, hooyo, maxaa kuu dhacay sodogii arooska ahaa? inantii baa ku jawaabtay, hooyo, ninkii uu kala daatay.